طبعا وادد قبله طبعا وادد ganacsi ga yaqaan طبعا وادد isku duuban marka ay dhib timaado waa kuwa iscaawiya fiiri markii ay fatahaadaha dhaceen fiiri markii ay abaaraha dhaceen fiiri marka dabka uu kaco dhamaantood Soomaalidu waa kuwa isku duuban hase ahaatee nabar aysan ka bogsan karin caalamkana dhibaato ba'an markaasi ay u arkaan ayaa Soomaalida haysta kama kici karaan kan maxaa yeelay 40 sano ayay xalka nabarkani dawadiisa ay laayihiin muxuu yahay marka nabarka uu ka sheekeynayo Mr. Jawhar oo ah ninkii mucaaradka ku ahaa Abiy Ahmed ee muddo xabsiga lagu hayay kadibna la sii daayay isagoo Mareykan jooga ayuu ka hadlay bal hal dhib oo Soomaalida haysta oo markaasi hadii dhibkaasi ay ka bogsato ay geeska Afrika oo dhan Soomaalida hormuud u noqon lahayd haddaba dhibkaasi muxuu yahay halkan ayaan ku fiirin doonaa qodobanaheena jimcada maanta qodobkaas ayaan ku eegi doonaa share gare aragtidaada qaybta commentiga muxuu kula muuqdaa marka aad dhamaysato hadalka Mr. Jawhar ma tahay Soomaalida xilliga ay iska daaweyn lahayd nabarkani xitaa iska daa markaasi caalamkii kale ee dariskoodii ay markaasi u sheegayaan soo dhawaada aad mahadsantiin aynu guda galno kani waa hogaamiyihii mucaaradka ee dalka Ethiopia Mr. Jawhar waa nin Oromo ah waa nin markaasi aqoon-yahana activist dhinaca social media ku dheereeya yani Ethiopia tagay muddo joogay kadibna adigu wuxuu isku dayay inuu Abiy Ahmed isku taago lafka weyn waa ku jabisay xabsiga lagu tuuray muddo ku jiray kadibna waa la sii daayay oo wuxuu galay dhinaca dalka Mareykanka oo asal ahaanba uu ka yimid markii uu Ethiopia imaanayay haddaba ujeedkeenu maaha inaynu ka sheekeyno waxa Jawhar Maxamed uu yahay iyo arrimahaasi waa nin islaam ah oo Oromo ah waxaynu ka hadlaynaa marka hadalka halkan bilowgii aan kugu bilaabay ayuu ka jeediyay dalka Mareykanka waxa uu ka hadlay in Soomaalidu ay tahay qowmiyad weyn qowmiyad daadsan ilaa Muqdisho ilaa Nairobi ilaa waqooyi bari dalka Kenya ilaa Jigjiga ilaa iyo markaasi dalka Djibouti wuxuu yiri marka bal suurayso qowmiyadaas oo isku laab furan ganacsigooda isku furay isdhex galay wada shaqaysta iskana dhaafay qabiil waxaan ka hadlaynaa waa qabiil iska dhaafay qabiil yani maxay noqon lahayd bay kula tahay ma laga yaabaa in bariga Afrika suuqa ugu weyn uu Soomaaliya noqon lahaa dabcan haa maxaa yeelay Soomaalida dhibka kaliya haysta ma aha dhinaca ganacsiga waa ku fiican yihiin dhinaca iscaawinta waa ku fiican yihiin dhinaca abaaraha markay dhacaan sida isugu gurmadaan waa ku fiican yihiin dhinaca shaqada waa ku fiican yihiin oo qofka Soomaaliga ah ee Mareykanka jooga markii uu soo galo markiiba shaqo iyo sharciga la raadiyaa oo waa la soo dhaweeyaa yani hase ahaatee dhibka ugu weyn ee dadkan haysta ee 40 sano wax ku dhow ay ku soo kabsan laayihiin waa waxa loo yaqaan qabiilka qabiilkii ayaa waxa uu la mid noqday sidii diintii waxay u soo kabsan laayihiin diinta sida ay u aaminsan yihiin ayay qabiilka u aaminsan yihiin hogaamiyuhu wuxuu sheegay in marka la fiiriyo sida Soomaalida hal abuurka ay u leedahay iyo sida ay dad waxgal u tahay ay haddana uga daman tahay caalamka kale marka ay timaado malafka la xiriira dhinaca qabiilka waa ku dhintaan dadna waa u dilaan isla markaasna iyaga gudahooda isku xasuuqa sidaas daraadeed Soomaalidu waa inay xal u helaan hadii ay rabaan inta aan kor ku soo sheegay ayuu yiri in ay gaaraan waa inay xal u helaan qabiilka ribaabiye wuxuu yiri kala qoqobnaanta iyo waliba istakooridda gudahooda ayaa u keentay in caalamka kale laga takooro fiiri baasaboorada fiiri ayuu yiri waxaan akhrinaya ayuu yiri warbixintii ugu dambeysay ee kala sareynta baasaboorada kan ugu liituu noqday waa dad wax soo saar waa dad hal abuur leh ma mudnayn ayuu yiri baasaboorkooda inuu heerkaasi gaaro xilligan waxay ku fiicneed inay noqdaan dad horumarsan waxa kaliya dib dhigayna ma ahan halka ay ku yaalaan iyo khayraadka Ilaahay ku manaystay ma ahan ee dhibaatada haysata waa wax iyaga gudahooda ah oo dhaxal ay iska dhaxlayaan taasi oo ah qabiilka iska dhaafa Soomaaliyeed waxaan noqon doontaa barwaaqo sooran waxaan noqon doontaa dal hormara waxaan noqon doontaa meel loo soo shaqo tago waxaan noqon doontaa geeska Afrika meesha ugu bilicsan ee caalamka oo dhan indhaha uu ku qabto fadlan waan baryaya ee Georgia ayuu ku soo gabagabeeyay